xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda Soomaalida Itoobiya ayaa kacsanatan iyo subaxnimadii saaka kadib markii saaka lagu waabaristay ciidamada militariga ee dawladda federaalka Itoobiya oo isku gadaamay xarumaha muhiimka ah ee dawladda sida baarlamaanka, xarunta xisbiga iyo jidadka muhiimka waxaana magaalada ka dhacay saaka kacdoonna ay sameeyeen dadweynaha magaalada Jigjiga kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada lagu soo daadgureeyay jidadka magaalada Jigjiga ee militariga ugu dambeyntiina ciidamadaasi ayaa shacabku ay ka hor yimaadeen waxaana la sheegay inay ka fogaadeen goobihii markii hore ay yimaadeen telefishanka Home Cable oo raadiyo xiriirka mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida ayaa khadka telefoonka waxaan kula xiriiray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Koore waxaana aan weydiiyay sida hadda uu yahay jawiga magaalada Jigjiga iyo xaalku sida xaaladeenimo ayba ciidan militari maxaa ku leeyahay soo galay caasimada deegaanka Jigjiga meel laga soo amray iyo sabab uu socodna ma garanayno xukuumadda ma ogeyn madaxweynaha lama soo sheegin maadu markuu bariyo ma lagu soo toosay taasi waxay dhalisay markaa dareen fara badan oo dadka shacabka runtii argagax ku riday baabuur tignika militari kadibna kacdoon baa dhacay dadka shacabka markii su'aashii looga jawaabi waayay sababta meesha keentay arrintaas runtii saaka dhacday khasaare fara badan oo ka dhacay dad badan baa dhintay markii ciidankii maxaa ku leeyahay shacabkii la hadlay Israa'iil runtii ciidanka militariga ayaa tallaabo qaato dadkii la ma garatay marka khasaare ilaa hadda meesha ka dhashay intee buu dhan yahay والله أنا شغله خسارة بدن بعد عاي خسارة بدن بعد عاي دوار قرنا صامل معك ولا تبدو كعضمان باغور لا تشجيعية قبل لا يعينك بالتالي حتى هذا السنة ماشي أقول أنت وهذا اللي يراه بدن الشعب دمر كشريان معصية أو معك راي هذا يرى تدعي معك بدن وحكي بدن نتوري مكين لكن حضرتك سنة عينك وبنات وكان اللايان قاس صارتي إلى خسارة إلى عند السعودية تشتري لكن ساعات معك كل عام يدقن تسويه ولا عاد يروح عند يدقن إن وراك كلام شيء جيا inay isku dhaceen ciidamada new police iyo sidoo kale ciidanka militariga ee saaka lagu arkay Jigjiga wararka maxaa ka jira ما عاد شكر هذا يا تعرف ترى wax ka jira ma jiro waxa yaani wax ka soo baahan kugu cadeyn kara ciidan new police xabad ma jiraan waliba waxay la halgamayeen inta badan dadka maxaa shacabka ay ka joojiyeen khasaare inay geystaan ama dad kale ma tii joogaan in dhibaatayaan ay ciidanka new police ku hawshaareen annaga kamid ah mas'uuliyiinta deegaanka ciidanka soo horjeedo soconay هذا يرى askari kulliye boos xabad banka la soo sheegay karaasula arinta kale ku saabsan bangiga in la dhacay oo dad ka tirsan ciidamadu ay arintaas sameeyeen maxaa ka jira هذا شكر waa marka meel wax ka dhaca wala bambuuniyo baa la sheegaa dhamaan hay'adaha dawladda maxaa ku raayay wax dhibaato loo geystay la jiro laba branchiyo bangiga private oo waxa ku raayay mawaahidiyo guriga laga jijibiyay way dhaceen laakiin wax hanti ah oo la qaatay iyo wax ciidan oo bangi galay haba yaratay ma jiro bangiga marka commercial bank maxaa ku raayay dawladda si uu shaqeynaya شركة تيلي وعمل تيليكوميونيكيشن واسيري شركة لاير واسيري لكن تبص على يا عيد بعتك سوى كلام كتقولي الشيء من مراد واحد يقول ودي عدرتا كان الموضوع هذا بطاطا بدل يعني حق الرئيسية بالله قطع ما هي هو هذا قضية كنت قلبي يعني wasiir Axmed Koore waxaad ka tirsan tahay xukuumadda madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar saacadihii la soo dhaafina waxa la isweydiinayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar halkee buu ku sugan yahay marka adigu maadaama aad ka tirsan tahay xukuumadda goorma kuugu dambeysay halkee buu madaxweynuhu ku sugan yahay هذا شغلات يا دول ما صنعوا ساعات المكان كلها بيو 10 minutes كهر بقى كصباح مركان يعني أنا عندنا حق ريته أنا هذا دائما كتبنا لي لا يوجيه المكان كصباح مدحونا والنبض قلا مدحتوين في بتشوجا ما أقول في اللي نبغى نوعين حشارة أنا كوجو هذي مرة لبعض إنه مدحونا والنبض قلا مدحتوين في كل شيء هاي واحد لا كانوا كذا هذا راتب ليش عارف يدحشوا يعني مدحونا في سما مش عارف كذا تعصب واحد إذا من التريو ما أنت مدحتوين يجي ما يقول كان سنة متشرو خلاص حلنتي وحوي runtii si fiican bay u socotaa xukuumadda federaalka maxaa ku leeyahay madaxweynaha runtii arrinta ka xidhiidhan maxaan ku raayana shacabkan maxaa ku leeyahay dejiyo oo loo sheego la dejiyo uma hawsha ku jirnaa wixii khasaare dhacay ugu dhacay ka dabtaan xasilta dhaawacna insha Allah ilaahay ma caafiyo miyuu jira khilaaf ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaruhu uu sheegay ee ku saabsan dhinaca saami qaybsiga shidaalka oo arrintan lala xiriirin kara هذا شكور الله سؤال في عن هذا الواحد ويهركا أنت أقول بدن شعب كديجان سوالي تودي أو كتعي والشكل كتعي كنت مركز اللي كديجان سوالي تودي وحول شعب وكذا شعب وقلت على ملام تتغيرين كنت وين على أنت بدناها كما أنت يعني كديجان ككلية اللي جابت تنبيه الله رد تنبيه ملام تتغيرين كنت كديجان سوالي توديها أنت شغال كاس واحد شركي هذا القصة يريد الوزارة والشعب يسوي حمرية الشرعي تراتي كوريسي أو كامل وكل يوم يجينا شوية بالشغالك كنت سامي ووصل وش عقلبوها كامل لو لفينا يعني يلا هذا شرعيا وح شرعي وقارئ ويعني وليها الشرين لكن كنت تاسوح ويان
من شيء هذا إن كانتين عيدا لو سوا عمره سيكا إنه الشاق قوا وكاوي يعني طبعا مدرك إحنا قلني لكن أنا أريد أسوي كذا شكل على ذلك مين هو أنت شعب كذا سوى سوى توبيا أقبل يا معه أنا أقول لك حكومة عندها مثلاً ما أقبل ضمنا معه أقول يعني يلا شيء وسير الشيء ومثلا ده يراها ما قاعد أكرم والله ما قاعد أكرم حدا ميدين عده عدة مركو هرم ميلتريga amartay talaabadan qaadaan بشكرك جدا وقت الميلتري وعيدهم مال بقى لا حكومة ليش لا حكومة بعمر كذا أعرف شو أنا مثلاً على عرفت بيدرسوا ودي هاي جماعة تقول عينك في الكوفي هاي صوت أنا ودي هاي أيضا أنا مثلاً أنا وصلت على سنة shirkii loo balansanaa maalinta berri oo 5 bisha ah inuu ka furmo jigjiga isku tashiga ahaa ma dhici doona mise arrimahan dib ay u riixayaan ولا يفاتح على شكر وحلا عندي هرت كل سؤال لكم هذا لما طلع لي حد طلع كذا لك برينا فرموا على شركة سي حتى بعد فلان بعد علي أو محقق لي تذكر كعلان فربنا خسارة بدنا دماش ضاوع وحول ما لين بعد علي مركز هاي يقول لنا محقق لي لا وهي بريت المحقق تاشي ثم نفسه قطرة أكيد لا أكيد فرم كنا وفرم تعديل أكيد محقق لين خسارة عند عين محقق لي تفكير لا ما دي لا دي بدنا ولا كذا لكن ساعات أنا مكان فرم يا يوم فرم ما كنا كذا